halkan waa kanaalka cilmi baaris ku soo dhawaada daawadayaal qaybtii labaad ee dhulka duurjoogta waddanka Botswana. galagaadi Transfrontier Park oo ah xaqiiqada sohdimeed ee u dhaxaysa Botswana iyo Koonfur Afrika ayaa ahayd aagii ugu horreeyay ee ilaalinta ee loo sameeyay lama deegaanka koonfurta Kalahari bishii May ee sanadii 2000. bedka guud ee dhulkan 38,000 kiiloomitir laba jibaaran. Botswana waxay leedahay in ka badan 28,400 kiiloomitir laba jibaaran. halka bedka 9,600 kiiloomitir laba jibaaran uu raacsan yahay waddanka Koonfur Afrika. laba aag deegaan oo ah safaanaha iyo dhul daaqsimeedka Afrika ayaa halkan ku yaala. waxaa ku nool xayawaanada naasileyda ah ee ugu weyn Afrika. kala duwanaanshaha ubaxa iyo xayawaanada hodanka ah ayaa ku lug lahaa dhowr mashruuc cilmi baaris ah. jidadka safarka duurjoogta ee ka imaanaya beeraha Gaborone waxay ku lug leedahay safar waddo masaafo dhan 865 kiiloomitir. sidoo kale waxaa halkan ka jira beerta qaranka ee Nakasai National Park. beerta xayawaanada ee Nakasai oo daboolaysa dhul ballaaran oo ah 7,500 kiiloomitir laba jibaaran ayaa la aasaasay 1970. waxay leedahay dhammaystirka nolosha socdaalka duurjoogta, taasoo qasabtay in la isku daro labada beerood oo laga dhigo hal qayb oo u taagan ilaalinta duurjoogta dalkani Botswana. kaydka ciyaaraha Murami Game Reserve oo ku taala dhanka bari ee dhul daaqsimeedka Okavango Delta waxaa loogu magac daray guddoomiyihii hore ee Murami ee qabiilka Botswana. magacaabistan waxay ka dhigan tahay in qabiilka Baserwa ku noolaayeen deegaanka, taasoo la ogolaaday inay sii joogaan kaydka Murami. dhanka kale, nolosha duurjoogta ah ee deegaanka Herbivore waxay ka soo bilaabantay cawska ka baxa halkan, taasoo iyana soo jiidatay ugaarta deegaanka. kaydka dhulka Kalahari ee bartamaha dalka oo ah kaydka labaad ee ugu weyn Botswana, kaasoo daboolaya beddan 52,000 kiiloomitir laba jibaaran, waa deegaan bannaan oo fidsan kaasoo leh dhulka milixda ah iyo beeraha aagga webiyada. dalkani Botswana waxa uuna leeyahay kaymaha loo yaqaano Mopin oo ku yaala koonfurta iyo bariga dalkan. dadka asaliga ah ee halkani degan ilaa waqtiyada hore waxay ku noolaayeen dhulka baadiyaha ah. xayawaanada duurjoogta ah sida gariga, waraabaha bunniga ah ee duureedda, haramacadka, shabeelka iyo libaaxa ayaa lagu arkaa dhulka dooxooyinka ah ee Kalahari, gaar ahaan inta u dhaxaysa Diseembar ilaa bisha Abriil. Botswana waa hoyga lama deegaanka Kalahari ee ballaaran iyo dhulka dabiiciga ah ee Okavango Delta. deegaanadani waxaa ku gadaaman noocyo badan oo dhir ah iyo xayawaano duurjoog ah. tani waa meesha ugu fiican ee safarka dibadda. booqashada dalkani Botswana waxay ka dhigan tahay arkidda duurjoog fara badan iyo deegaano cagaar ah.